qof walba oo naga mid ah wuxuu ku hamiyaa naftiisa inuu wax ka bedelo noloshiisana heer ka gaaro taasna waxay ku dhici kartaa fikir raadis qorsheyn iyo isku day waxaan ku dadaali doonaa muuqaalkan inaan kugu soo bandhigo 5 shay oo ka caawin doona wax badan inaad ka bedesho noloshaada haddaad ka saartid nolol maalmeedkaaga waa walaalkiina iyo saaxiibkiina Shuto oo idin leh daawasho faa'iido leh shayga koowaad oo muhiim ah inaad noloshaada ka saartid waa in aad ku dhignaatid isla meeshaada qof jecel ama ku qanacsan ma jira inuu ku jiro xabsi traffic ama inuu ku xayirnaado guriga sidaan aragnay markuu dhacay COVID-19 isbedelka waa dabeecada bini'aadamka waana shay muhiim ah haddaadan dareemin isbedel ilaa muddo dheer khaas ahaan dhanka maskaxda iyo sida noloshu u aragtid waxaad dib u fiirisaa sida waqtigaaga u qaadatid waxaad ku qaadatid iyo maskaxdaada waxaad ku gurtid waxaadna ka fiirsataa hadallada iskula hadashid maxaa yeelay waxaad noqonaysaa waxaad adiga naftaada ka aaminsan tahay xasuusanaa maalin walba aad nooshahay inaad tahay arday kuna dadaal inaad isbartid wax cusub maxaa yeelay aday ku saarantahay mas'uuliyadda naftaada iyo mustaqbalkaaga shayga labaad oo muhiim ah inaad noloshaada ka saartid waa in aad u malaysid waxa tagay inuu ku matalo waxaad hore u samayn jirtay iyo waxaad soo qaladay iyo xaalad walba adag oo ku soo martay waa wax dhacay oo tagay haddaad awoodid waqtiga hadda la joogay inaad saxdid sax haddaadan awoodinna ka soco oo ku tusaale qaada kaliya awood uma lihid waxa la soo dhaaf inaad bedeshid laakiin waxaad awood u leedahay waxa soo socda inaad saameyn weyn ku yeelatid waxaadna xasuusanaataa marka tagtaada ay noqoto xaadirkaaga waxaa saas ku weynaysaa mustaqbalkaaga shayga saddexaad waa in aad noloshaada noolaan qaladka ugu weyn ee dadka sameeyaan maanta waa inay fiiriyaan nolosha dadka kale ee la barbardhigaan noloshooda haddana iska dhaadhiciyaan noloshaas ay ugu jeedaan social media inay ka fiican tahay noloshooda tusaale ahaan waxaa qalad noqonaysa maanta qof 5 sano video samayn jiray inaan la barbardhigo videogan igu horeey hadda aan sameeyay aan iska dhaadhiciyo videoga inuu aad u xun yahay waxaa xaq daro ah inaad noloshaada iyo dadaalkaaga la barbardhigtid qof kale oo noloshiisa hal daqiiqo kaliya aad ka aragtay aadanna ogeyn waqtigiisa kale wuxuu ku sameeyo iyo sidoo uu qaato videogan san kugu soo bandhigo inta frameka kaamirada ay qabanayso waxaan ku dadaalay inaan qurxiyo oo sida ugu habboon kugu soo gudbiyo laakiin intaan kaamirada qabanayn oo frameka ka baxsan haddaad aragtid si ay u qasan tahay waad isku naxaysaa noloshaada noolaw ogaaw levelkaad nolosha ka maraysid iyo waxaad awoodid kuna dadaal maalin walba inaad ka fiicnaatid shalay taasaad ku gaaraysaa hamigaaga shayga afraad waa inaad isku daydid qancinta qof walba way adag tahay qof walba inuu kugu raaco waxaad sheegtid iyo wax walbood aaminsan tahay taasna waa caadi muhiimadu waa inaad hubsataa waddadaad ku socotid iyo waxaad aaminsan tahay inay yihiin wax adiga iyo mustaqbalkaaga ku anfacaya mar walba way jirayaan dad kaa fikra duwan oo kaa soo horjeesta bini'aadan ma qancin kartid hortaada lagu daalay dantaada ka raac shayga shanaad waa in aadan mahadnaqin nolosha mar walba sidaad qorshaysay ama adiga sidaad rabtid uma dhacdo dadkan sidoo kale sidaad jeceshiid ama sidaad rabtid mar walba kugulama dhaqmi karan haddaad heshid waxaad rabtid u mahad celi qofka sababta u ahay hadduu noqdo ilaahay naftaada ama dadka kale haddaad heli weysidna ha isxanaajin hana ismurjin waxaad u mahad celisaa ilaahay maxaa yeelay wax walba sababay leeyihiin sababtaad u heli weysidna ilaahay subxaana wa tacaala og adiga keliya mahad celi waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaagaad ila qaadatay haddaad isleedahay waad ka faa'iida muuqaalkani la wadaag dadka ku dhow iyo qof walbaad jeceshahay sana like soo u gaar dad badan waa walaalkiina iyo saaxiibkiina Shuto oo idin leh mustaqbal wacan